waxa ugu fiican baa leeyahay reer dhaqda doqon aqli badan waliga ma maqasheen ad waliga doqon miska dhigtay waxaad arkaysid inuu khaldan yahay waliga indhaha ma ka laabatay doqon ma tiido waad arkaysaa yani hadda in la saxaan haboonayn laakiin goorma sixi caruurta markay iskuulka aadaan hadda shaqo lahayn waa islaanta la soo kaxaystaa kaliya haday tahay meel baa la keenaa kadib waxa la yiraahdaa heblaayay hadalkii maalinta dhaweed aad lahayd markaan fiiriyo saan ku jeclahay allah waxaan ku jeclahay markaan fiiriyo ixtiraamka aan ku hayo wallahi aanu hadalka ma ba ku qooreen way iska ooyay waa miskiin laakiin markaad hadalkaasi maxaad ii tiri horta waayaha waan ku fahmi waayay arintan arin aan ku wada joogi doono ma aha ma dabad baaziin ku shubtay bis waxba hagaajisay saadaradeed ragow markaad wax islaaxinaysaan intaasaan ku khatimayay saddex iga gunta makaanka wax lagu xalinayo goorta wax la xalinayo iyo qaabka wax loo xalinayo oo bisoo celinka saaxiib aan xaqad ku maqnayd sax Soomaa goorta makaanka meesha wax lagu xalinayo goorta la xalinayo iyo qaabka loo xalinayo waliga adiga islaantaada ha wada hadlina adigoo gaajaysan adigoo daalan adigoo xanuunsan adiga oo jawigu aad u kulul yahay aadna u qabow yahay dadna idin la joogan hatta yaan yur Allah ka dhigay adiga islaantaadu marka wada hadlaysaan yaan yur hadii guriga joogto hatta way laga saara taawamid idan waqti aad maskaxdu diyaar tahay la wada hadli karo waa makaanka goobta waa shay goobta waqtiga sheegay makaanka Soomaa waligiin sayma maqlaysaan ragow risaalo weyn baad siinaya ragay ninkay horay uga khaldantayna Allah ku dhaafo laakiin hadda sax waliga qolka nabadda adiga islaanta ku wada hadlayna qolka nabaddu maxkamad ma dad baa maxkamad ka dhiga marka la soo seexdoon markaas inta soo fayl la soo furaa oo ma nin baa seexan kara saacadaas inta soo fayl lagu soo furay ya nin bari shaqo digtoona oo maanta hore rafaasana inta soo fayl marka la soo furo ma ninkaas seexan kara wallahi uu seexan karin jooj qolka jiifka yaa lagu wada hadlin qolka jiifka shaqooyin ba u yaala kale ku filan inta ku filan haduu xambaaro uu badiyay warma la fahmay waa meel lagu nasto oo jirka lagu nasiyo waa jannada adduunka marka waqtiga meesha lagu wada hadleen fadhiga iyo meel kale ama qaabka Soomaa qaabka waxa ugu wanaagsan qaabka daan sheegayay in la yiraahdo heblaayo hebelow aad baan ku qadariyaa qiimaad ii leedahay madaxda ii saaran tahay boqorka reerka ayaa tahay roor cagaaran baa ku dhigan laakiin hadal maalin dhaweed aad tiri xogaa waan dhibsada saaxiibo Allah saaxiibi hadalku nooco hadalka raali ah oo sabeen baa kugu xiran habeenkaas jamacada inay ta ka soo qaada adduun baa dhacay wabillahi tawfiiq salaamu alaykum.